بريهان حرر بدن أو جناعسجة يدقالها يا أمنية خصوصية أي برلمانك يا قارن وكدو داي ويلا قار مرسية قارن أي ولي سجيان حندريم يا ماها برلمانك بس برنامج حتى ضد بدن أو كقيلني ده ضد كسوماليات حوله يلا دع الربع ضد كسوماليات محن كور هذا حرية ده لقى قادر ربايو ولا الحرك حرية مطلقة مجرتو قف سيدي حيوانك اسكت يصيروا ماشي ورب اسكت مرة يوحوا ورب اسكت سمينا يا مجرو حرية ده لا وحد حرية كل هاي أنت ضدك كلا حرية دود إلى عشان تهاد أدونا حرتها دولة وقوانين وشروع دولة وحي دولة كتاي قوانين وحي كلام معنى بدن تهاي قوانين تأيلادها وحي كلام معنى بدن تهاي قوانين تأيلادها سيد أي أدغن جلسه وأي أفلسه وحي كلام معنى بدن تهاي قوانين تأيلادها سيد أي أسر ريان أو قانون قفل با هي شرعات قفل با أي أسر رئيسه أو قفل بإنه يكون هوس نولات أي تهاي إنه يكون دول نولات أنا أهين حندريم يا بريهان مركي اللي يرادو قانون عصب أو وحاس قصيار لسمينيا ضد ومد هذا الشيء يثبت ضد بدن دبيسة لأن قانون عصب على سمينيا وحلو سمينيا ماشي أنجوبني إنه كجورنا كتبنا سيدا زدرادين قانونكو واكو دفاعية دانا هذا إلى علينا يا ضد كصوماليات اسكسي إنه نولادان إلى علينا يا هانتيدا ay leeyihiin sharafta waataan aan dawlad muraadka aan dawlad kale nahay waxaan leenahay annagu dadka aan nahay nooc aan nahay dawladda aan rabno waxay tahay wax aan leenahay dawlad noo ilaalisaa rabnaa karaamada sharafta diinta maxaan ku rahaa hantida maxaan ku rahaa magaca mansabka dawlad noo ilaalisaa rabnaa waxayna noogu ilaalin kartaa kaliya qaanuun maalinba ninka jooga aqligiisa naguma filla iyo aqliyada maalintaas ragga jooga oo talada haya قوانين جوجتا أو كان أجوجا ككالوسي جوجا ككالوسي جوجا ينوجا إلى على كرتا حاربا قوانين توان إلى علينا قفك الصومالي جا إن ملاص وقف صديق إلى علينا هنتدي سئن لقب صديق إلى علينا لبكون إيكودي مركي دجالكي محنكو هذا سبتمبر 11 أي تماتي ما قهنتيه الصومالي هاللنطي هالصبح ده سيدي حول وهايستين يا بيلك المهودة واي sagaashankii markii dawladeena naga burburaysa meeqa qofoodo milyaneer ah iyo bees ay bangiyada u tiilay ayaa subaxii daba gacan ku dareer noqday waxa soo dhan maxaa u asala qaanuun la'aan ama qawaaniintan oo daciif ah qaanuun haddaan leenahay adduunyadu dawlad ahaan waxay kula dhaqmay inta hadba qaanuunkaaga u leeyahay haddaadan qaanuun lahayn nidaam lahayn wax ka celinaya male sidii rabaa lagu gacmaysanaya waana sida aan soo aragnay waayahan dabo dhan aan soo arkaynay adduunyada ay qaarkeed ay noola macaamilaysa kuwii uu naga xishoodo ayaga moral iyo ethics iyo waxyaabo kale mabaadi kale ilaaliya moogiye kuwii ugu ciyaal suuqay maaga waa aragtay sidii noogu ciyaal suuqeeyeen imaa dalkan dadka Soomaaliyeed ku dhaxdil ku burburi ka waxay annagii sidoo kale kii noo soo gargaaraya dil afduub xagga ka dhac oo maxaan ku isku difaacayna lana wiilasha laga leexdo macquul ma aha waxaan codsanayaa dadka Soomaaliyeed walaalayaal in aan ilaalin dawlad si aan u noqonnaahi waa inaan xoojinaa oon adkaynaa oon yeelanaa qawaaniin na ilaalisa na difaacda hantideena ilaalisa dadkeena ilaalisa marka qawaan waxa kale intaas qaanuunku aayado quraan oo munazala maaha ووحدة سمي رسولك عليه الصلاة والسلام حوله مركو كهذا أهل مكة أدرى شؤون تودا أيها يقانه سيدا أي ربان شؤون تودا هاو حيستان صومان انتاس قواي قوانين تان بارمان كان لقيني ولو حين ورمحا سان هنا تقواي أو هوسي أو محاكورة حيرار كيني يهاب نوروليت كيني هوسي كجوابي مركا آيات قرآن ما هدو قلو عضي قانون كان واقلو عنيه ما شانو لا يعني diinta lama jaan qaadi karo dhaqankeena lama jaan qaadi karo dhaqaalaheena iyo duruufteena lama jaan qaadi karo xorriyadeena iyo dimuqraadiyadda aan rabno inaan ku talaabsan lama jaan qaadi karo waa la bedela kolkii hore aniga madaxweyne ahay shuruucdii la sameeyay baarlamaanka hadda dib u yaalaan waa la bedelowa maxaa soo baxay goldoloola ka soo baxay laakiin haddaanay jirin maxaa goldoloola ka soo baxan haddaanay jirin
toban sano 20 sano 30 sano kale kadib xataa ha ahaatee maalintan bilowna ayaan goldoloolada iyo ciladaha ay leeyihiin maalintaas baan la kuusan doonaa laakiin maanta haddaan samayno oo biri sii saxno oo biri daba sii saxno 10 sano 20 sano ka bacdi qaanuun annagana nolosheenana hab nololeedkeena la jaan qaadi karo adduunyadana la jaan qaadi karaan heleynaa war wax boqolkiiba boqol saxa waxa ilaahay keena bas ka jiro wax bina aadan isku soo duduway iyo ra'yi bina aadan oo keenay marna boqolkiiba boqol sax ma ah laakiin waa la horumari karaa waa la sii waxayn karaa sidaas daraadeed aan dul qaadano aanan ogolaano dalku inuu qawaaniin yeesho si uu dawlad u yeesho dawladdiisuna ay u xoog badnaato oo ay qawaaniinteedu u baahsanaato oo qawaaniinteedu ay aqbalaad dadkooda u lahaato qaanuunka inuu dadka aqbalsan yahay ayaa muuna qaanuun kastoo dadku aanay aqbalsanayn dalka qaanuun kama noqon karo mana ka dhaqan geli karo dadkeennu inay aqbalaan wixii cillado iyo ceebaale iyo dhibaatooyin ku jiro oo caam ah maaha wax aniga ii daran waa laga yaabaa qaanuunka qaarkiis inuu aniga i dabraay waxaa laga yaabaa qaanuunka qaarkiis masaalix aan helayo aniga inuu iga joojinayo laakiin waxaa ogaadaa markuu aniga masaalix aan helayo iga joojiyo boqolaal kale ayuu masaalix u furayaa oo helaysa oo si waafaqsan qaanuunka ku helaysa marka walaalayaal baryahan cabsida iyo dareenka aan maqlaayahay waxaasaa ka mid ah qawaaniinta amniga loo dejiyana waa ku ilaalinay aday ku ilaalinay meeqaan aragnay qof la iska dila la iska baxay meeqaan aragnay qof ganacsigiisa inta loogu tago wixii raba laga sameeyey ma dacwoo kartid laana qaanuun loo gafay ood ku dacwootid ma laha kanna qaanuun kuma socoyo maba ku soo geli lahayn haddii qaanuun uu jiro oo la aqbalsan yahay asagaba marka hore iskama soo geli lahayn gurigaaga guryahayna inta naloogu soo dhaco nalagama soo xirxiri karo nalaguma dhex dili karo guryahayna ayadoo weliba magaca dawladda la sheeganayo annagoo jidka taaganoo soconoo nabad oon qoray wadaninoo waxba wadaninoo gacmeheenna saan dhehayna nalama xabaday karo laakiin waa inuu jiraa qaanuun oon qofkaasi berri aan ku dacwi kara qaanuunka inuu jiro in la aqbalsan yahay inuu xooggan yahay u dhaqangal yahay qaanuunka oo dawladdu ay xoog ay u dhaqangeliso qawaaniinta jirta dawladda Soomaaliyeed waxaa ka go'an mar walba dalkan inuu nabad deganaanshiyo sharaf iyo karaamo dal adduunyada la macaamilo inuu noqdo oo lagu soo celiyo dadka Soomaaliyeed oo walaalayaal meel kastoo aad joogtaan tabashadiina waa sax waana la dhaqan gelinayaa meelo badanayna leedahay aad ku hagaaji karto wakiilo aad soo dooratay oo dawladda wakiilo kaaga ah joogo tabashadaada waa u gudbi kartaa hay-adaha dawladda ay qusayso ayaa jiro tabashadaada waa u gudbi kartaa madaxdaad u gudbi kartaa dawlad Soomaaliyeed oo taaba gashay oo shaqaynaysa oo sida dawladaha caalamku ay u shaqeeyaan ay u jiraan u shaqaynaysa oo u jirta waayo waxa hadafka ugu dambeeyo inaan gaarno aan u wada taagannahay wiilal badan inooga dhimanayaan rag badan maxaan ku raay u eedoobayaan kuwa badan ay caruurtoodii iyo ilmahoodii iyo ayaga ay ku kala go'een oo mashquul adduunyo iyo dawlad ka shaqaynta daraadeed ayaan ilmahoodii muddo dhan iyo deegaankoodii aanay u tagin wax badan oo muxuu ahaay dadka Soomaaliyeed naftii horanimo ah ayay u bixiyeen dawladnimada runtii dhiigga wax ka qaalisan oo qofku bixiyo ma jiro haddana waxaad u malaysaa marka qaarkood waxaad arkaysaa waxyaabo yar yar oo aan macno badan ku fadhiyan oo si sibiq ah maxaan ku yiraahdaa dadkeena qaarkood ay maxaan ku yiraahdaa ay uga fakanayaan aanay dareensanayna sida ay waxaas yarka ah dawladnimada ay wax ugu dhimi karaan oo ay u baahnaan lahayd in laga dulqaato hadafka dawladda Soomaaliya ee maanta jirtaahay waxa waaye dalka in ay dib ugu celiso xaaladii dawlad rasmi ah oo sida dawladaha adduunka u dhaqmayso caalamkana tartan kula jirta oo aanu ka tagayn waana laga tagay in badan oo kamid ah talaabta ugu horeysa talaabta runtii dadka Soomaaliyeed ilaahay baa qulubta isku soo jeediyay ilaahay qalbigooda uu ku soo wada rogay waxa waaye nimanka cadawga ah ee maxaan ku raaa khawaarijta ee dalka ku habsaday sanadihii la soo dhaafay inaan dalka dib uga xoreyno wiilasheenii qaaliga ahaa ayaa dhiigooda u bixinaya rag badan oo maxaan ku raahday gabdho badan oo Soomaaliyeed ayaa xoolahoodii ku bixinaya maxaan ku raahdaa qatar aanay hubin intay la egtahay ugu bareeraya maadaama ay dalka too dib u xoreyntiisa ay tahay sidaas daraadeed waxaan arkaynaa marmarka qaar kuwa kale oo Soomaali ah oo afcaal ama afkaar cadawga u shaqaynaya cadawga u shaqaynaysa afkaar cadawga u shaqaynaysa
ama afcaal cadowga u shaqaynaysa samaynaya ogaal la'aan waxaan ku kalsoonahay ogaal iyo cadowga taageer iyo cadowga maxaan ku raadaay cayili inaanay ugu shaqaynayn laakiin ogaal la'aan faham yari inay ugu shaqaynayaan laakiin fahamka oo dhan hal meel uu ku soo dhamaadayo oo ah nimankaas khawaarijta waa cadow waana soo aragnay in cadow yihiin qof Soomaali oo maanta uu ka qaldan yahay inay jirto u marayn maayo maxaa uu adeegay u baahan tahay inaad dib ugu istaagtid sidaas daraadeed xigmadii hore ay ahayd xilku waa meerto oo miyi iyo aan ku soo dhaqmi jirnay oo maxaan ku yiraahdaa maalin walba qof aan mas'uuliyadda u dhiiban jirnay war intii kama duwana maanta haddaad meesha ka tagtay adduunyada kuma dhammaato maanta baraad meel kale iyo meel ka sii sarraysa iyo meel ka macno badan yaa tegi doontaa waxaan jeclaan lahay in laga dulqaato intii dawladduna way dadaalaysaa way ka jawaabaysaa dareenadaas macnaha inaan iska dhigatirayno oon iska indhatirayno ma aha dadkeennu dareenkiisa iyo waxa uu qabo iyo mustawaha uu joogo in laga jawaabo oo lagula shaqeeyo waa dawladdu waa aad iyo aad ay u baraarugsan tahay